Qaybtan waa qaybtii 14aad sida EVC Plus ugu iibsan lahayd Bitcoin iyo qaabka Bitcoin aad u haysatid ula bixi lahayd yacni EVC Plus ayaa ka hadli doonaa. Applicationka Somali Safaricom ku dhufanayna Play Store-kana waa ka helaysaa, kusoo degsan kartaa haddii u baahan tahay. Lacagaha Dogecoin, Tron, USDT iyo kuwa kale Litecoin iyo waxyaalahaas dhan waa ka helaysaa. Kadib select currency ka dooranaysaa EVC Plus haysataa waxaa rabtaa Bitcoin idaman EVC Plus kadibna halkan select ku dooro Bitcoin ka dooranaysaa man Coinbase ku dhufaysaa yacni Coinbase markaa ku dhuftid hadda kahor use Dogecoin-kana waa saas u dhufanaysaa waa taqaanaa soo ma. Kadib halkan lacagta ku qoraysaa aad rabtid $5 iyo bar camal u yar. Kadib exchange ku dhufaysaa exchange markaa ku dhuftid meeshan waxaa gelinaysaa coinka waa Coinbase wallet yacni USDT-gaada Bitcoin-kaada address-kiisa gelinaysaa waa ku tusi doonaa internet account name-na waxaa ku qori doontaa coin-ka rabtid magaciisa. Coinbase aa gelinaa Trust Wallet aa gelinaa qasab maahan inaad Coinbase kaliya isticmaashid address-ka meesha ku isticmaashid kasoo copy garaynaysaa ma fahantay. Halkaas ku dhufaysaa kadib waxaa ku dhufaysaa Bitcoin aa ku dhufaysaa kadib address-ka copy ku dhufaysaa kadibna copy ku dhufaysaa kadib halkan waxaa ku gelinaysaa address-ka Bitcoin-ka meeshan coin-ka magaciisa ku qoraysaa Bitcoin aa dhahaysaa kadib waxaa ku dhufanaysaa confirm exchange ku dhufaysaa kadib halkan nambarkan lacagta ku diraysaa saas aa leedahay saas copy dheh mobile address hadaa haysatidna mobile address-ka kasoo diri kartaa meeshan paste ku dheh kadibna lacagta meeshan ku qor $5 iyo bar kadib waxaa okay aa dhahaysaa waxaa moobtaa lagu dhahaa inaad wax kaga iibsanaysid Somali Safe online kadib pin-kaada gelinaysaa lacagta markaad dirtid meeshan nambarka lacagta kasoo dirtay aa gelinaysaa hormuudka kadib submit aa leedahay kadibna qaabkaas ayaa lacagta ugu sarfatay iyadana 2 daqiiqo ayay nagu qaadatay inaan ku sarfano. Kadib meeshan pending waaye marka meesha profit ku soo qoran tahay lacagta lagu diri waa marka BTC wallet-kaana waa kana kor soo jiidaysaa kadibna waa kaasa profit lacagtaada waa la profit gareeyay qaabkaas loogu shubtaa marka Bitcoin ku shubeysid marka la bixaysidna waxaa qaabkan u la bixaysaa halkan kor waxaa dooranaysaa Coinbase ku dhufa Dogecoin hataa qaabka loola baxo waa ku tusi select currency waxaa dooranaysaa maxaa la dhahaa Coinbase macnaha select currency EVC Plus aa liisoo diraa yacni lacag Bitcoin aa haystaa Coinbase aana u dooranaysaa kadib waa arki doontaa qaabka u sii wadi doono halkaas ku dhufanaynaa $5 iyo bar camal kadib exchange ku dhufanaynaa $6 camal exchange ku dhufanaynaa exchange markaa ku dhufno kadib meesha EVC Plus wallet yacni nambarka lacagta lagu soo diri lahaa gelinaysaa saas nambarka lacagta lagu soo diri lahaa markaa gelisid kadib confirm exchange ku dhufaysaa Bitcoin aa la bixiyay waa kana Bitcoin aa ku dhufanaysaa sidoo kale Litecoin xataa waa ka sarfin kartaa iyo Shiba Inu iyo waxyaalahaas dhan waa ka sarfin kartaa meeshan Bitcoin-ka aa ku dhufanaysaa kadib address-kana copy dhahaysaa lacagta kusoo diraysaa yacni copy dhahaysaa Trust Wallet-ka aa gelaysaa Coinbase kaliya inaad isticmaashid qasab maahan sida hore kuu sheegayba kadib Bitcoin-kana ku dhufanaysaa send aa dhahaysaa address-ka meeshan gelinaysaa meeshii lacagta Bitcoin-ka kugu jirto lacagtaana inta oo dir lagu dhahay copy la taabanaysa xataa qoritaankaaga ma baxna okay kadib meeshan paste ku leedahay kadib waa kaas mujida qaabkaas waa kadib lacagta $5 iyo 9 sent waa continue aa leedahay kadibna qaabkaas ugu sii diraysaa kadib markaad dirtid meeshan page-kan uu isbedelaya thank you lacagta inaad dirtid inaan kale ayuu kuu sheegayaa qaabkaas ayaana iyadana loola baxaa loona shubtaa Bitcoin
waxaan rajeynayaa inaad fahantay. Meeshan lacago badan ayaa ka heleysaa sida ujeedidba, qaabkaas ayaana lagu shubtaa. Okay, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.